إنا لله وإنا له راجعون قدوميها حسبك معارض كاي ودني دكتور محمد عبد الله عرو isagoo ku hadlaya magaciisa ka hoggaanka fulinta garabka dhalinyarada iyo haweenka xusbiga mucaaradka ee wadani waxaan halkan tacsiiraan leh uga diraya ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay Allah u naxariiste marxuun mujaahid xasan guray jaamac oo ku geeriyooday hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa gudoomiyuhu waxa uu marxuunkan ku sifeeyay inuu ahaa shakhsi halgan weyn ka soo galay sidii ummadda Soomaaliland ay u heli lahayd cadaalad iyo dawladnimo duniduna ay u aqoonsan lahayd isagoona ka mid noqday saraakiishii SNM sidoo kalena mujaahid ka magac weyn ku lahaa halgankii dib u xoreyntii Soomaaliland mujaahid marxuun xasan guray waxa uu ahaa odayaasha lafdhabarta iyo tiirka uu ahaa qarankan isagoo door weyn ku lahaa shirkii nabadeynta iyo dib u heshiisiintii bulshada reer Soomaaliland xilal badanna ka soo qabtay qarankan mujaahidku waxa uu ahaa qof aan ka baydhin runta gudoomiyuhu waxa uu Ilaahay uga bariyay marxuunkan inuu su'aalaha u fududeeyo uguna dambi dhaafo janno farduusana ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii iyo caruurta uu ka tagay samiriye iimaan sadiiq ah ka siiyo gudoomiyuhu si gaar ah waxa uu tacsiidan uga dirayaa madasha wada tashiga qaranka oo marxuunku mudooyinkii u dambeeyay uu ahaa gudoomiye inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun warsaxaafadeedkan waxa ku saxiixnaa afayeenka xusbiga mucaaradka ee wadani barkad jaamac batuun waa xamsada bare telefishinka Star Hargeysa